Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada daawadayaal kanaalka barasho. Magacaygu waa Khalid Cabdirashiid. Qisada aan doonayo maanta inaan idiin soo gudbiyo waa qisadii aniga igula yaabka badneed. Intaan qiso soo duubay waa qisadii igula yaabka badneed aan arko. Qisadani waxa ay dhex martay laba nin saaxiib lilaahi ah, laba nin Alle dartii ku saaxiibtay, waana dadkii hore ee wanaagsanaa. Haddaba qisadu waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan. Nin ka mid ah dadkii hore ee saalixiinta ah, kaa oo lahaa wiil ay Alle dartii u walaalooween, wuxuuna ahaa mid Alle ka cabsi badan. Inkastoo labadoodu ay hal meel wada joogin, haddana saaxiibkii sanad kasta ayuu soo booqan jiray mar. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa la soo gaaray xilligii uu soo booqan lahaa saaxiibkii ay Alle dartii ku saaxiibeen. Gurigiisii ayuu tagay, albaabka ayuuna garaacay. Xaaskiisii ayaa ku tidhi, "Waayo cidda albaabka garaacayso?" Saaxiibkii ayaa ku yidhi, "Waa walaalka ay Alle dartii ku walaalooween ninkaaga, asaga ayaana soo booqday." Xaaskiisii ayaa ku tidhi, "Wuu tagayoo xaaba ayuu soo ururinayaa, Allana kuma soo celiya nabad." Waxayna bilowday inay ku habaarto wax kastoo xumaan ah. Ninkii wuu yaabay, wuxuu la yaabay naagtaani ninkeeda habaaraysa. Asagoo taagan albaabkii ayuu arkay saaxiibkiis oo ka soo socda meel buur ah oo guriga u dhow. Waaba asagii oo sita libaax ay dusha u saaran tahay xaabo, gacantana uu ku sita faas ama wax lagu gooyo xaabada. Dabadeed wuu yimi, saaxiibkii ayuu salaamay, guriga ayayna wada galeen. Kadib xaawadii ayuu soo xareeyay, libaaxii ayuuna ku yidhi, "Orodoo bax, Allaha ku barakeeye." Markii uu soo galay saaxiibkiisa, xaaskiisa waxa ay bilowday inay cayso, afka u taagto, aflagaado iyo xumaan oo dhan iskugu darto. Ninkeedana wax jawaab ah muusan u celinin. Dabadeed wuxuu la fadhiistay saaxiibkii booqashada ugu yimi, wax ayayna wada cuneen. Dabadeed saaxiibkii wuu iska tegay, asagoo la yaaban sabarka ninkani saaxiibkiisa ah. Markii la gaaray sanadkii xigay, gaar ahaan xilligii uu soo booqan jiray saaxiibkii, ayuu soo laabtay si uu u soo booqdo saaxiibkii. Laakiin markaani wuxuu doonay inuu kula kulmo buurta agteeda. Waa buurtii uu ka soo baxayay asagoo sita libaax dusha xaaba u saaran. Markii uu buurta tagay ayuu waxa uu arkay isla libaaxii ee uu saaxiibkii xaabada ku sitay ayuu meel dheer ka arkay, kaasoo wax laynaya. Xayawaanadii duurjoogtana aanan wax asaxaan ah u falaynin. Aad ayuu la yaabay. Markii uu go'aansaday inuu aado guriga saaxiibkii, wuxuu soo xasuusay xaaskiisii caydeeda. Wuxuuna doortay inuu halka saaxiibkiis ku sugo ilaa uu ka arkayo. Muddo badan ayuu sugay saaxiibkii. Wuxuu yidhi, "Halaan kadib saaxiibkii ma sugi karo ee gurigiisa ayaan tagayaa. Laga yaabaa asaga inuu joogo guriga, uusan maanta soo bixine." Kadib wuxuu aaday gurigii, albaabka ayuuna garaacay. Xaaskii saaxiibkiis ayaa ku tidhi, "Waayo cidda garaacaysa albaabka?" Markaasuu saaxiibkiis ku yidhi, "Waa ninkaaga walaalkii ay Alle dartii ku walaalooween." Xaaskiisa ayaa ku tidhi, "Soo dhawow, fadhiiso, wuu imaanayaa insha Allah, khayr iyo caafimaad asagoo qabo." Ninkii intuu fadhiistay ayuu yaabay xaaskii saaxiibkiis markuu arkay ayadoo ku hadlaysa hadal jilicsan. Ilbiriqsiyo kadib waxaa yimi saaxiibkiis oo dhabarka ku sida xaabo. Arrinkii mar kale ayuu haddana la yaabay. Markuu soo gaaray ilinka guriga ayuu salaamay, waxayna wada galeen guriga. Dabadeed way fadhiisteen. Xaaskii saaxiibkii ayaa u keentay cunto aad u macaan, iyadoo weliba ku hadlaysa hadal dabacsan, jacayl iyo ixtiraam uu ka muuqdo. Ninkii ayaa mar kale yaabay markii uu arkay xaaska saaxiibkii oo ku hadlayso hadallo jilicsan, ixtiraam iyo jacayl uu ka muuqdo. Markii uu bixi rabay ayuu saaxiibkii ku yidhi, "Warniyow, aniga waxaan doonayaa inaan su'aal ku weydiiyo. Sanadkii hore ee lasoo dhaafay ayaan kuu imi. Waxaan xaaskaaga afkeeda ka maqlay erayo aan afkayga soo marin karin. Aan ka baqayo inuu Alle ii xisaabiyo. Sidoo kale waxaan ku arkay adoo buurta xaggeeda ka soo socdo oo sita libaax ay dusha u saaran tahay xaabo. Sanadkan markaan kuu imina waxaan arkay xaaskaaga oo ku hadlaysa hadallo jilicsan, ixtiraam iyo jacayl uu ka muuqdo, kaa oo aanan ahayn hadalladii ay kugula hadlaysay sanadkii hore. Adigana guriga waxaa timi adigoo xaabo dhabarka ku sido, aanan libaax dhabarkiisa ahayn. Sanadkii horena waxaa xaabada ku siday libaaxa dushiisa. Sidee nin yahow wax u jiraan waxaan aan arkayo? Sanadkii horena sidaan ma ahayn, sanadkanna si ka duwan aan arkayaa. Sidee wax u jiraan waxa aan arkay iga dhaadhici?" Markaa ayuu ninkii u jawaabay, wuxuuna ku yidhi, "Warniyow, ma adigaaba war hayabo, war aan hadda ku siiyo. Xaaskaygii hore aan qabay way geeriyootay, waxaana ahaa mid dhibkeeda iyo dabeecaddeedaba u sabro. Markastana agteeda waan ku daali jiray, anigana waan u dulqaadan jiray. Alla wuxuu ii fududeeyey libaax ay dadkoo dhan ka wada baqayaan in dushiisa aan xaabo soo saarto.
xaabana aan ku soo rarto ilaa gurigeyga ilaa meesha aan ka soo guro. Waxaasoo dhanna waxaan ku helay sabarkii aan u sabri jiray xaaskaygii hore ee iga geeriyoonaysay. Markii ay geeriyootay xaaskaygii hore, waxaan guursaday xaaskaani wanaagsan, markastana agteeda waxaan ka helaa raaxo iyo degnaan. Libaaxiina sidii ayuu iga tegay, aniga ayaana xaabada dusheeda ku soo qaado. Ilaahayna laba isku uguma kay darin. Hore waxaan u haystay xaas, aflagaado, caay, guriga markaa imaado aan waxyaabo xunxun kala kulmay. Gurigana waxaan ka bixi jiray anigoo daalan. Sidaa darteed, Alle wuxuu ii fududeeyay inaan libaax laga baqo dushiisa aan xaabo ku soo qaato. Laakiin hadda waxaan haystaa xaas wanaagsan. Guriga markaan ka baxayana aan si raaxo leh uga baxo, markaan ku soo laabanayana aan si raaxo leh ugu soo laabto. Libaaxiina sidaa darteed ayuu ku tagay. Saaxiibkii ayaa ku yidhi, run ayaa sheegtay. Intaanan imaanin gurigaaga ka hor, waxaan soo maray buurta guriga u dhow. Waxaan arkay libaaxii Alle kuu fududeeyay in aad wax ku soo rarato, kaa oo ku kaalmeyn jiray, hadalkaaga qaadan jiray, amarkaagana ku socon jiray. Waxaan arkay asagoo xoog weyn, xayawaanada laynayo, aanan wax asxaan ah u falaynin. Durbadiina meesha waan ka soo tegay, cabsi aan isaga ka baqayo in uu waxyeelo i gaarsiiyo. Saaxiibkii ayaa ku yidhi, libaaxii aad arki jirtay markasta isoo qaabili jiray, markaan u waco ii imaan jiray, amarkayga qaadan jiray, xitaa agtiisa aan seexan jiray anigoo aanan wax boroboleem ah dareemin. Weliba markaan agtiisa jiifo waxaan dareemi jiray amni. Maanta waxaa laga yaabaa haddii uu i arko inuu dhib i gaarsiiyo. Wax kastana waxay ku jiraan gacanta Alle walaalkayga. Ciduu doono ayuu wax u fududeeyaa waqtiguu doono. Haddaba qisadeeni halkaa ayay ku dhammaatay. Run ahaantii qisadani markii aan qorayay aad ayay iga yaabisay. Haddaba saaxiibayaal, haddii aad ka hesheen idinkana like saara si aan u ogaado in laga helay qisadani. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawaada. Waxaanu idin leenahay farxad ku waara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.